بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقت wanaagsan walaaleyga qiimaha badan meel kasta oo adduunka ka joogtaan. دكتور arrimaha qoyska iyo usrada aad iyo aad ugu takhasusay 20 sano ka soo shaqeynayay maxkamad arrimaha qoyska khusaysa oo la yiraahdo دكتور جاسم المطوع ayaa maalmaha kamid wuxuu ka sheekeynayay noocyada ay raggu u qaybsamaan guurka ka hor iyo guurka kadib marka loo fiiriyo cilaaqada iyo xiriirka ay dumarka la leeyihiin. wuxuu leeyahay marka cilaaqada ama xiriirka ragga iyo dumarka ka dhaxeeya intuusan guursanin ka hor waa 3 qaybood. qaybta koowaad wuxuu leeyahay waa rag albaabkoodu iska furan yahay, ma yaqaanin xalaal iyo xaaraan, waxaan sharci maaha iyo waxaan waa sharci, cilaaqaadkoodu way iska badan yihiin, wax kale alla iyo waxa naftiisu jeclaato ayuu dumarkii la sameeyaa. yacni wax ka xiran ma lahan qaybtaas ragga ah ayuu leeyahay intayna guursanin ka hor oo ma daneynayaan waxaan waa sharci ama akhlaaqda kuma fiicna ama diinta kuma fiicna ama waa xalaal ama waa xaaraan. qaybta labaad wuxuu leeyahay waa qayb dhaxdhaxaad ah, dawaabid ah celinayso qofkii akhlaaqdiisii iyo sharcigii way celinayaan, haddana ma aha qof xirxirane, waa qof dumarkii la kaftamaya, dumarkii la socdo, la hadlaya, laakiin waa qof dawaabidii ay celinayso oo sharcigii uu celinayo oo waxaan qiimeynaya waxaan muku banaayihiin mise muku banaana. qaybta saddexaad ee ragga kamid ah marka la fiiriyo cilaaqada ay dumarka la leeyihiin guurka ka hor wuxuu leeyahay waa qayb muqlaqiin ah, qaybta waaba xiran yihiinba, looma dhawaado, way soo dhawaanin kuu soo dhawaan maayo, haweenka lama hadlaan, lama sheekaystaan, umana soo dhawaadaan ilaa inay si rasmi ah kula hadlayaan oo ama waalidkeed uu la joogo ama walaalkeed uu la joogo maahane si kale haweenka uu lama dhawaadaan. wuxuu leeyahay marka saddexdaas nooc ee ragga ah markay guursadaan kadib haddana way sii kala qaybsamayaan. kii albaabkiisu iska furnaa ee wixiisi iska walaaqan jiray guurka ka hor ee wax kasta faraha la geli jiray ee jid celiya iyo jaha celisaba aan lahayn markuu guursaday kadib 2 nooc ayuu noqdaa ayuu yiri. mid sidiisii ayuu ku soconayaa oo cilaaqaad badan ayuu sameynayaa oo xaaskiisii kuma filnaanayse haween badan ayuu la soconayaa, howlihiisiina sidii buu ku wadanayaa. waana arin aad iyo aad u dhibaato badan. midna wuxuu leeyahay faylkii hore waa iska soo xiray, waxaasi dhalinyaranimada ahayd wuu ka soo noqonayaa, hadda waa inaan toosaa oo xaaskayga ku ekaadaa ayuu leeyahay. yacni 2 nooc ayay sii kala noqdeen halkii nooc ee munfatixa ahaa ee maftuuxa ahaa intuunan guursanin ka hor. qaybtii mutawasidiinta ahayd ee dhexdhexaadka ahayd ee aan dumarkiina la socday ee la hadlayay intana dawaabidii iyo sharcigii ay celinayeen waxaa dhacda ayuu leeyahay inta badan inay jidkoodii ku socdaan oo qofkii markuu xaaskiisii guursadana sidiisii unbuu ku soconayaa oo qof ma noqonayo munqaliq ah oo xirxiran iyo qof munfatixa 100% ma noqonaye mutawasidnimadiisii ayuu ku soconayaa. qaybtii saddexaad ee xirnayd ee munqaliqiinta ahayd ee aan u dhawaanaynin dumarka iyo cilaaqaadkoodana wuxuu leeyahay qaybtaasi inta badan sidooda ayay ku socdaan, laakiin mushkilada waxay imaanaysaa ayuu leeyahay marka daada 40aadka ay gaaraan oo ninkii oo markaasi ay 2 qayb u sii qaybsamayaan, qayb jidkeedii ku socota iyo qayb infitaax bilowda oo haweenkii cilaaqaadkoodii markaa kadib bilaaba. muhiimada muuqaalkan waxa weeyaan 3 nooc ee raggu leeyihiin ee cilaaqaadka iyo xiriirka la sameeyo dumarka ah. waxaa laga rabaa qofka dumarka inay kala fahmi karto qofkani waa nuucee oo iska ilaalin karto nuuca qofka aan xalaal iyo xaaraanba kala aqoonin oo cilaaqad aan ku ekaysanaynin ee dumarka oo dhan ay saaxiibadiisa u wada yihiin inay iska ilaalin karto. waxaa la rabaa ninka ragga ahna sidoo kale hadduu is ogyahay inuu yahay nuucaasi inuu ka soo noqdo oo uu aad iyo aad iskaga ilaaliyo. muhiimadu waxaa weeyaan nuuca mutawasidka ah ee dhexdhexaadka ah ee dawaabida iyo shuruucdiina ay celinayso noloshiisa iyo cilaaqaadkiisiina sida saxda u wata ayaa ugu wanaagsan ayuu ku tilmaamayaa. aad iyo aad ay u mahadsantihiin, aadna idin salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.